waxaan rabnaa wixii naloo qaban karo in goobta caafimaadka naloo ka qabto kasbaay ahaan marka ay tahay baahiyaha ugu adag way badan yihiin oo wada aragtaa waa deegaan ballaaran oo baahiyihiisu dee lama soo koobi karo laakiin almuhiim waxa jiray MCH qabyarno anagu markii hore aan si iskaashi ku dhisnay haddana meel buu marayaa halka meel dhaxaa buu marayaa halkaas ayaanu baasinkii nagaga go'ay kuna tamar weynay wax badanna waa u dirnay oo qolada jaaliyada iyo qolada wasaaradda caafimaadka iyo dawladda cid walbana waa gaarsiinay waana ogtahay waana ka dharagsan tahay kuwa yiri waxbaan idin kala qabanaynaa waa jireen haday jaaliyada ahayd iyo haday wasaaradda ahayd hadda marka waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo danaynaysa in ay hawsha wax nagala qabato waayo waa muhiimadii kooneed ama waa halbowlihii caafimaadka rugta caafimaad wax kasta oo baahi kasta waxa nagaga weyn rugta caafimaadka oo naloo qabto oo naloo dhiso sababtoo waa deegaanka ballaaran oo khatar badan baa ka soo maray waxa jiray hooyooyin dhiig baxay oo khatar ku sugtay oo aan halka qayb haday doonto ku soo dhamatay sida awgeed marka ayaanu in aanu MCH hawsheeda abaabulo aanu ku galay sidii maana baahideedu u taagan tahay fadlan marka cid kasta waxaanu gaarsiinaynaa qaylo dheer iyo qaylo gaabanba u diraynaa haday jaaliyad tahay iyo haday wasaaradda caafimaadka tahay iyo haday mid dawladeed tahayna waxa weeye inay hawsha wax nagala qabato tuulada Sibaaye deegaankeedu wuu ballaaran yahay waa deegaan ballaaran waa deegaan shacab badan ha iyadoo sidaas oo la wada ogsoon yahay waxa ay bulshadu aad boqolkiiba 90 ay ugu jilicsan tahay wariga caafimaad rugta caafimaadka ayay ugu jilicsan tahay bulshada meesha taala iyo deegaankuba wuxuu ugu jilicsan ugu baahi weyn rugta caafimaadka waa qodob wixii baxsanaya haday tahay jaaliyadaha haday tahay maamulka haday tahay wixii wax sadaqadaysanaya in ay wax u qabtaan oo saaraan awoodda ayay bulshadu aad ugu codsanaysaa iyadu wax qabso aan kula qabsay yiri oo ay awoodeedii istiishay oo ay asaastay rug caafimaad tusaalaheedna muujisay markay meel mareysayna halka awoodeedii waqtiga ajiilaal ku qabsaday dabadeedna ay halkii istaagtay qoliyo hore oo mar sarfay sida oo kala anagu maray ama maamulka ahaato ama xagga jaaliyada ahaateena iyadoo ay arkeen oo nala arkeen waxa ka muuqda sida ka muuqato haddana markii wali halkii waxbaanu qabanaynaa waa nagaga tageen laakiin hawshoodii halkii bay wali u taagantahay hawshii nagaga tageen waxbaanu ka qabanaynaa halkii bay u taagantahay waxaanu marka jecelahay sida ugu horeysa ama ugu dhaqsiinyaha badan in wax loogu qabto bulshada waa qodob waxaase noogu daran oo qodobka kaliya oo noogu halista badan uu yahay magaalada dad baa degan maalin walba gabadhii umulaysa waxaa loola cararaa deegaana durugsan haddii ay halka ku umushana dhiigbaxa iyo hawsha qaybtoodna ay u dhimato qaybina ay u dhawaato waxaan rabnaa Puntland in ay wax nooga qabato oo wixii ay nooga qaban karto si degdeg ah ay wax nooga qabato waxaan rabnaa oo kale ciddii muxsiniina ee danaynaysa dadka iyo dalka oo ama qurba joog ha ahaato ama cid kale oo de muxsiniina oo meelaha joogtaba ha ahaatee wixii naloo qaban karo in goobta caafimaadka naloo ka qabto oo sidii insha Allah waxaanuna rajaynaynaa fariintayada in aanu ku guuleysano waayo dawladdeedana waa ku kalsooni badanahay oo kalsooni baanu hadalka u leenahay
dadka kale oo aanu codsiyada u dirsanaynana waa la mid iyana insha Allah saasaano annagu halka aanu hadeer aanu saarayno buuradka oo aanu baahiyo iyagu ay wada siiro yihiin aanu galabta aad u danaynayno waa goobta caafimaadka odayaashii horaana sheegay